بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa magaalada Lascaanood waxaa halkan noogu yimid raggii dhalinyarta ahaa wadaadada ahaa khiyaarta ahaa buugan diyaariyay taariikh nololeedkii Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax sheekheeni waalidkeen ahaa culimadeena Soomaaliyeed waaweyn kamid ahaa rahimahullah rahmatan waasi'a isaga iyo culimadii kale ummadda Soomaaliyeed ee dhimatay muslimkaba rahimahumullah jamiican rahmatan waasi'a buugan saddex dhalinyarta kamida wadaadada ah oo khiyaarta culimada aba diyaariyay Shucayb Cabdiraxmaan Muuse iyo Cabdilaahi Farxaan Cabdicasiis iyo Jaamac Axmed Jaamac waa uga mahadcelinayna juhdiga ay bixiyeen iyo dadaalka ay bixiyeen waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu uga dhigo khaalisan liwajhil kariim Ilaahay subhanahu wa ta'ala in ikhlaas uga dhigo ummadana ku anfaco taariikhdii iyo sooyaalkii sheekha bay ku ururiyeen wali aan wada la guddoonsiiyay maana wada akhrin buuga gabigiisa laakiin insha Allah waan akhrin doonaa laakiin su'aasha markaan weydiiyay sooyaalkii sheekha laga bilaabo dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii wixii ay gaari kareen bay ku ururiyeen marka ugu horeysa juhdigooda iyo dadaalkooda ay geliyeen waa uga mahadcelinayna waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo waa mahadsantiin jazaakumullahu khayran qofka wanaag sameeyo waa loo duceeyaa abaalgud iyo ducada waa mudantihiin waa idin ducaynaynaa Ilaahay jannadii abaalkiina jannaha ka dhigo amalkiinana ikhlaas liwajhil kariim miisaanka xasanaadka Allah idinku cusleeyo qodobka labaad dhalinyarada waanu ku boorinaynaa iyaguna inay sii wadaan wax ka qorista culimada iyo dacwada lafteedana wax ka qoraan waa ku boorinaynaa tan waa faatixatu khayr inay sii wadaan dhalinyarta kalena inay ku daydaan oo iyaguna taas oo kale waa ku boorinaynaa oo culimada inta nool hadda joogta laga faa'iideysto sooyaalkooda iyo taariikhda wixii laga qori karo iyo waxay kala socdeen waaqica taana waa ku boorinaynaa insha Allah ta'ala waxaan ku boorinaynaa in aqoon-yahanka iyo culimada iyo wadaadada iyo ganacsatadu ay taageeraan oo caawiyaan xagga talada iyo xagga tamartaba in laga taageero laga caawiyo maadaama aynu maartay ummad duruuftooda ka jilcisan tahay tacaawun badan u baahanahay taana waa bogaadinaynaa Sheekh Cabdulqaadir waxyaabaha laba qodob baan ka xusayaayo muddo dhowr iyo 20 sanadood oo dheer baan isnaqaanay sheekha waxyaabaha ajaa'ib kale anagoo xaramka joognaa ayuu sheekhu maktabad ku taala maktabad buu kitaaba ka soo qaatay baan filayaa uu ka soo iibsaday asaan rajaynayaa iyo hadda in hadiyad loo soo siiyay baan kala garanaynin salaadii dhuhur baa soo gashay anagoo maka shaaric la yiraahdo shaaric al-hajj anagoo degan isku masaajid baanu markaa salaadii dhuhur inaan ku tukanay rabnay nin gaari wata oo qof dumar la socoto ayaa sheekha gaariga ku dhuftay markaasuu kutubtina halkaas ku finiineen sheekhina halkaas ku dhacay markaasaanu ku soo yaacno waa u nimi sheekh sidaata iska waran oo la fiima jabna buu yiri laakiin college waa yara gaadhay ka bacdina kutubtii waxaan u soo ururinay wuu seegagay ninkii iyo islaantii iyo baad ula hadlayo ana saamaxo waacinkana wax leedin haystaa ma jirto iska tag cafis baati ordo iska tag dadkii meesha joogay Soomaaliyeed waa la yaabayeen sheekh murmurxi gaaray iyo jugti ku dhacday iyo gaari uu ninku u ordiyo ugu dhuftay iyo sida Ilaahay ugu sakhiraan waxba uga jabin waa wax ajaa'ib ah waxay ahay taariikh xusid leh runtii oo xusuustoon Ilaahay bay tahay waxyaaban kale oo Ilaahay waxa kamida geeridiisii sheekha alayhi rahma ayaan anigu marka uu berri oo kale dhiman doono baan khamiistii soo maray garowga markaasaan kulan baa jira aan wada yeelanay aniga iyo isaga iyo Sheekh Cabdinaasir rahimahumullah jamiican rahmatan waasi'a aan wada yeelanay baa jira waxaan filayaa Sheekh Maxamuud Salaadna inuu kulankan nagula jiray aad uma hubo laakiin waa u maleynaya waxaan ku shirnay maqaaxiyo hodheel ku taala ku yaala garowga oo waama la yiraahdo hadda niyo waama loo bixiyaan u maleynaya ka bacdi waxaanu sheekha ka codsanay Lascaanood inuu yimaado oo dhalinyarada macadka al-Furqaan taariikhdii dacwadeed uga sheekeeyo kaas wuxuu yiri waa yeelaya waan imanayaa dhalinyarada fadhiyo dhowran u galeeyaa la taariikhdii dacwada intaan joogay waan ka sheekeynayaa laakiin waxaan ka baqayaa inaan bilaha iyo sanadka taariikhda yara ilaawo halka halay xusuusiyo meelaha qaar kood dan yara ilaawo ballantaas ay noo horeysay
khamiistii baan marka garowa soo maray anigoo safar ah markaasaan sheekha wada fariisanay dhaqan waxa ay ahayd markaan garowa soo maro ama aan ku ekaado ama aan dhaafe ma dhaafi jirin sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax waan soo salaami jiray waan la kulmi jiray ilaahay fadligii maalintaasaan la kulmay markaasuu yidhi miyaad nala joogaysaa mise waad gudbaysaa berri kulan baan leenahay oo gabdhaha dacwadda qadan noo sameeyay duhurkii aad nala qadayside ma joogtaa sheekh berito tan ku ma sheekh waan gudbayaa laakiin waridi ku soo noqonaya berridana waa berrida uu dhiman doono ilaahay oofsan doono oo la dili doono sheekh waa khamiis jimciina waa tii la dilay sheekh calayhi raxma oo galabteedii waa tii la dilay casarkii baa la ii soo sheegay markaa sheekha geeridiisii oo aan markaa aaskiisii soo gaadhnay ilaahay waxaan ka baryaa adduunka khayr iyo dacwad iyo diin iyo dadaal iyo daacadnimaan isku barannay inuu ilaahay jannadiisa nagu kulmiyo baan ilaahay ka baryaynaa jazaakum allahu khayran ilaahay raxmad waasica culimadeennu dhan ha u naxariisto ilaahay dembigooda ha dhaafo dadaalkoodii ay diintii dacwadda geliyeen jannat alfirdows alaclaa allah ugu bedelo iyaga dabadoodna ilaahay inama fidneeyo inaan quluub wanaagsan oo daahira iyo gacmo weyse qaba